Hilfisverben ficil caawiye luqada Jarmalka waxaa jira 3. Hilfisverben ficil caawiye luqada Jarmalka waxaa jira 3. Waxayna kala yihiin sein, haben und werden. Waxayna ku bilaabin sein und haben. Ich bin kasoo qaado kala magacaaga sheegaysa. Ich bin Mona. Ich bin alt genug. In ugu filan waa jira. Farah und Asho sind verheiratet. Asho iyo Farah way isqabaan. Farah ist zurückhaltend und sympathisch. Farah waa qof gaabsada, waa qof hadal yar oo aan dadka kusoo degdegin camal. Und sympathisch waana qof sympathia leh ama qof soo jiidasho leh ama qof wanaag angenehm oo kale qof oo degan oo kale noqon karaa, qof oo laga heli karo oo kale angenehm laga heli karana maaha, waa angenehm wanaagsan, qof wanaagsan oo kale oo noqon karaa. Marka Farah ist zurückhaltend und sympathisch. Asha ist herzlich und charmant. Asha waa qof qalbi wanaagsan, herzlich, herz qalbigiya ku jira, und charmant waa qof soo jiidasho leh noqon kartaa oo anziehend oo kale. Waxay noqon kartaa umwerfend, qof oo markaad aragtid wow dhinac kuu tuura camal, ama zauberhaft qof maxaan dhahaa isla markiiba oo ku qaaday oo ku saaqay oo kale, saaqid oo kale ay noqon kartaa. Qof oo charmant oo meeshuu soo galay asaga dadkoo dhanba ma arkin oo qabsanayo oo saaqayo camal ay noqon kartaa. Marka Asha ist herzlich und charmant. Sein, kelmadda sein ama maxaa dhahaa hilfisverbka sein horta macnihiisu waa identiteit, waxaa tahay ama wuxuu yahay ama wuxuu sheegaa waxa qofku uu yahay. Si kasoo qaadoo kale shaqadaada ama wadanka kasoo jeeda, dhalashadaada, nationality ama nationaliteit. Maxaa la yiraahdaa kasoo qaadoo kale inta sane aad jirtidoo kale, da'daada waa u isticmaali kartaa. Magacaaga identiteitkana waxaa waaye dee magacaaga iyo waxaa tahay adiga moogtahay. Marka waxyaalahaas oo dhan loo isticmaalaa iyo waxyaalo kale oo badan waa loo isticmaalaa. Laakiin muhiimaddu waxay tahay inaad fahantid in ay tahay kelmadda sein in loo isticmaalo qofku wuxuu asagu nafsadiisa uu ka hadlayo moogta. Ich bin, ich bin, du bist, adiga waxaa tahay, ihr seid, idinka waxaa tihiin, ist, asagu wuxuu yahay, sie sind, idinka waxaa tihiin. Wax saasaa loo isticmaalaa kelmaddaas oo wixii dee mar walba ka hadlaya identiteit, wax oo ka hadlaya waa loo isticmaalaa. Ich bin, wir sind, du bist, ihr seid, sie, es sind, nein, sie, es ist, sie sind. Hilfisverbka haben waxaa loo isticmaalaa sidiisaba wax aad leedahay, Besitz, der Besitz, ama dareen, das Gefühl oo kale, ama das Symptom oo calaamadaha. Wixii symptom oo wuxuu noqonayaa kasoo qaadoo kale ich habe Kopfschmerzen, madaxa ay xanuunayo kale, waa symptom. Marka waxaa loo isticmaalaa marka maxaa la dhahaa wixii oo markaas oo Besitz waxii aa leedahay. Marka haben waxay noqonaysaa ich habe Kopfschmerzen oo kale. Wir haben, annaga, marka aniga iyo annagay noqonay. Marka ich habe, wir haben, annaga iyo
ama ich habe, wir haben. Annagana waxaan leenahay. Du hast, adiga waxaad leedahay, du hast. Ihr habt, idinka. Du und ihr waxa waaye yani du waa marka adiga iyo markaa jamca tihiin ihr habt. Sie, es, asaga, iyada, iyo es oo shayga ama xayawaanka u taagan ama ilmaha yar laftirkiisa had ay noqonaysaa. Jamc markay noqdaan sie haben bay noqonaysaa. Marka marka maxaan dhahaa hilfisverbka haben ama verb marmarka qaarkood xataa verb oo keligiis taagan uu noqdaa. Waa besitz. Besitz uu noqonaya. Ich habe 4 Kinder. Waxaan leeyahay 4 caruura. Wir haben keine Zeit. Waqti ma haysano. Du hast ein Auto. Waxaad leedahay baabuur. Ihr habt kein Haus. Guri ma lihidin oo kale way noqonaysaa. Ich habe 4 Kinder. Waxaan leeyahay 4 caruura. Wir haben keine Zeit. Waqti ma haysano. Du hast ein Auto. Waxaad leedahay baabuur. Ihr habt kein Haus. Idinka guri ma lihidin ama guri ma lihidin oo kale. Sie, es hat eine Katze. Asaga, iyada, es, xayawaanka ama cunug yarka. Had waxay leeyihiin mukulaal. Sie haben keine Hund. Iyagu malaha ey oo kale. Ey malaha. Die Konjugationen. Maxaa laga wadaa Konjugationen? Wer macht was? Yaa wax samaynaya. Marka kelmadda wer waxay u taagan tahay su-aasha qofka wax samaynaya. Aniga, adiga, asaga, iyada oo ich, du, sie, es, wir, ihr, sie. Mar walba waa wer. Macht was waxay noqonaysaa verb. Waa ficilkii la samaynayay. Macnaha waa verbka iyo personal pronounka inay islahaadaan. Personal pronoun macnaheeda wax kale ma aha. Waa ich, du, sie, es, ihr, wir, sie. Personal pronounka lagu sheegayo kuwaas waa. Yani waa magacii uyaalkii, magacuyaal inay noqonaysaa umalayna afka oo Soomaaliga. Adiga, aniga, iyada, isaga oo kale ay noqonay moogta. Marka personal pronoun waa magacuyaal. Okay? Marka hilfisverbka sein haddaan soo qaadano waa taan soo sheegnay. Waa ich bin, wir sind, du bist, ihr seid, sie, es ist, sie sind und so weiter. Ja, taasay ka macno tahay. Sidoo kale haben hilfisverbka waa saan hore usoo sheegnay. Maxaa la yiraahdaa wuxuu noqonayaa ich habe, wir haben, du hast, ihr habt, sie, es hat, sie haben.